bulshada deegaanka la jiiday ayaa maanta lagu wareejiyay gaari ambalaas ah oo loogu talagalay gargaarka degdega ah oo ay iibiyeen qurbajoog ka soo jeeda deegaanka la jiiday ee hoostaga degmada Xaraale waxaana ku wareejiyay xildhibaan Daadir Cabdullaahi Dhakow Sheekh Mahad Muuse Geesood agaasime Maxamuud Warsame Faarax Badmaceeye iyo Maxamed Nuur oo wakiil uga ahaa qurbajoogta deegaanka la jiiday ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan Daadir Cabdullaahi Dhakow isagoo baaq u diray dowlad goboleedka Galmudug iyo dhammaan hay'adaha caafimaadka naqbalaaran aan maaragta u jeedinayna qurbajoogta oo horay u hirgeliyay isbitaalka haddana dayac tiray haddana ambalaastii lagu shaqeyn lahaa keenay anagana waxaan ballan qaadaynaa insha Allah ambalaastaasna in lagu shaqeeyo khaasatan gudoomiyaha iyo guddiga deegaanka mas'uuliyadda ambalaastaas ayay saarantaa waxaan la doonayaa in lagu intifaacsado oo looga faa'iideysto arrimihii loogu talagalay isbitaalkan waxaan ka codsanaynaa dowlad goboleedka Galmudug isbitaalkaas in la qalabeeyo shaqaale caafimaad loo hirgeliyo maadaama dadkii deegaanka iyo qurbajoogtoodii iyo siyaasiyiintoodii iskaashanaya ay isbitaalkii dhisteen ambalaas keensadeen dowladda qodobkii ku aadanaa waxaan ka doonaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo codsigayga wuxuu si toos ah ugu socdaa wasaaradda caafimaadka wuxuu ku socdaa madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ku socdaa madaxweynaha wuxuu ku socdaa dhammaan golaha fulinta taas halkaas markaan uga soo gudbo waxaanu ku aanamaalnay oo faa'iido hal sano gudahood deegaanka la jiiday uu ku gaaray wada shaqaynta qurbajoogta deegaanka siyaasiyiinta heer Galmudug siyaasiyiinta heer federaal deegaanka ay ka wada shaqaynayaan faa'iidooyinka laga gaarayna waxaa kamid isbitaalkaas maanta la hirgeliyay ambalaastaas la keenay haddii 2 sano iyo 3 sano hadda kadib aan sidaan ku sii socono waxaan rajaynayaa deegaanka la jiiday inuu noqon doono magaalo dhameystiran oo caasimad ah dadka deegaankana waxaan kula dardaarmayaa in aayahooda iyo mustaqbalkooda ay ka shaqeeyaan in xaruntooda caafimaadka ay qof kasta wuxuu ku dari karo uu ku daro ambalaastaas in danta dadweynaha iyo hawshii loo keenay gudoomiyaha iyo guddigiisa iyo dadka deegaanka waxaan ka rabnaa inay ku fuliyaan dhanka kale gudoomiyaha deegaanka la jiiday Xasan Cabdiraxmaan Faarax iyo mas'uuliyiintii kale ayaa u mahad celiyay qurbajoogta ka soo jeeda deegaanka la jiiday sida wanaagsan ay u garab istaagsan yihiin ambalaastan hadda dhabarkayga ka sawiran oo halkaan taagan qurbajoogtii u soo gaday oo u soo garatayna waan kaga ducaynaynaa waana kaga hambalyaynaynaa waxa kale hadda aan hortaaganahay isbitaalkii ayaka qurbajoogta umbaa dhisay dhammaystiray dayac tiray ayakana waan kaga mahad celinaynaa deegaanka iyo shacabkana waxaan leeyahay sida walaalihiin waxaynu kugu tareen waxaynu kugu qabteen in adunkuna gudihiina wax uga qabsatiin deegaanka la jiiday Xasan Cabdiraxmaan Macallin ayaan ku wareejiyay furaha asagana deegaanka waa ka filaysaa insha Allah yaraale ahada wax xabsanahay maanta halkan waxaan u nimid Sheekh Mahad inaanu gacan ku siino wareejinta qurbajoogta u soo wakiishay ambalaastan isbitaalka la jiiday loogu talagalay annagu halkan qurbajoogta uga mahadnaqayna dadkii deegaanka diyaara culimaadudiinkii maamulkii degmada xildhibaankii deegaanka intaasoo dhan oo halkan diyaar ku ah ayaanu waxaanu ka soo qayb galay xafladan xil wareejinta ambalaasta loogu talagalay deegaanka la jiiday iyo tuulooyinka hoos yimaada in loogu adeego markii waa dhammaan ducada baa yiri waan ducaynayaa dadka qurbajoogta oo walaalaheena oo na soo gaarsiiyay ambalaastan hadda baan u ducaynayaa waxaan kale u ducaynayaa dadka madaxda oo reer Galmudug ama heer federaal maaragta dadkaas ah baan iyagana u ducaynayaa ilaahay iyo dhan khayr ha siiyo dawlad fiican oo aan ku naaloona Allah noo taxkumo Allah noo dhaliyo wala dhowraya mid aan ku liibaana ilaahay hana siiyo dadka marka walaalaheena wixina Allah barakeeyo maalka Allah idin barakeeyo mid aakhira iyo adduunka ku intifaacdan khayr la Allah idin siiyo mid dadka ugu gargaartana badan Allah idin siiyo maalkiina saasan ugu ducaynay ilaahay idin aqbalo dadka wax soo gaarsiisana Allah ku intifaaciisa Allah iyo dantooda Allah fahansiiyo Xuseen Ali Xuseen raadiyaha telefishinka Galmudug deegaanka la jiiday